halkan oo xarunta wasaaradda beeraha ayaa xaleetu loo soo daadgurayay dadkan oo ah qoysas danyar ah kuwaas oo roobkii dabaylaha watay ee ka da'ay gobolka Bari ay saameyn xoog leh u geysteen guryaha ay degnaayeen dadkan oo tiradoodu gaarayso ilaa 800 oo qoys ayaan haatan haysan meel ay seexdaan cunto ay cunaan iyo wax ay wadaan waxaana dawladda iyo hay'adaha maxalliga ay ka codsadeen inay gargaar la soo gaaraan magacaaga ku bilaabay soo dhaw TV-ga Home Cable dareenka in xal waana la keenay meeshan dawladda Puntland way ka mahadsan tahay hadda anaga waxaan rabnaa in guriyaasha inaan geeyo bacyaalna la siiyo alaabti naga daadayna la siiyo gargaar ba u baahanay oo la gargaaro waxay dawladdu idin qabatay xalad dawladda hal cashayna siis biyayna siis bustiyoolalna la siiyay timirana la siiyay xali cashaana la siiyay oo biseel anagoo dhaxamaynay biyi daadkina laga soo saaray gaari wax idin gaarin saameyn intee lag roobka idin geystay alaabti dhan waa naga daaday alaabti dhan waa naga daaday raashinkii kiskisti noo yaal waa naga daaday kunshi wax anaga haysana ma laha ilaa maga qoys baad waa dumay bac ma haysano wax anaga haysana ma laha dharkii biyaa naga qaaday wax anaga haysana ma lahan waxaan codsanaynaa in gargaar degdegna noo fidiyo qaar ahaan kaamka Tabakal anigu waxa weeye magacaygu waa Rooda Aadan shalay dawladda Puntland bana soo qaaday way ku mahadsan tahay aad baan ugu mahadnaqaynaa xalay cashadii biyihii wax kasta caruurtii meeshay seexan lahaayeen bay nageeyeen laakiin waxaan ka codsanaynaa meelihii aan degi lahayn inay aad nooga caawiyaan imika halkaas saaka waanu fadhinaa ilaa saaka noomay niman xalay toole noogu dambeysay si degdeg ah hay'adaha Puntland waxa noogu qabtaan aad baan uga codsanaynaa aad iyo aad baan uga codsan waliba guryaha noogu daran bustayo mal caruurta xataa kabayo nooma wataan waxay noo wataan male dhar ma wataan guriga wuu dumay imika meelan ku noqono maanta hadii la qoro halkan aan ka tagna ma jirto saaka iyo xalatay wax cuntaa meesha may saaka wax cuntaana looma keen laakiin xalay baa timirti xalay iyo baastadina loo keenay baa noogu dambeysay wala halka ma sha Allah way fiicantahay dawladda Puntland horta way soo qaaday alxamdulillah laakiin waxaan leenahay wali waxba naga dhiman nadaafad darbi baan hayso ilmihii gogol uma haysano waxaan u huyno uma haysano waxaan siino cuna uma hayno marka waxa waa in kasto meeshii qoyaneed ee biyaha lahaydna laga soo qaaday hadana wali wax alxamdulillah xalay wayna soo qaadeen gacan weyn bayna siiyeen ma sha Allah gaariyaal bay noo soo direen meel fiican wayna dajiyeen laakiin sida wali wax badan ayaa naga dhiman waa nolosheena dhamays ma ahanba hadana baahidii iyo maxaan ku raadayay wixii aan xidhan lahayn wax ilmaha siin lahayn ma bahaynaba aba yaraatee ka hadhay ma jirto wax dhar la yiraahdo ama cunno la yiraahdo wax gurigii laga laabto oo maanta noo yaala ma lahan waxa le wax noo haray ma lahan lafeeni bas noo joogo dawadayaal waxay la joogay Yuusuf Aadan Gaas oo kamid ah hawlwadeenada ka shaqeynayay markaasi samataxinaya dadkii la keenay xiradan injida magaalada Boosaaso dadkii barakacayaasha ee ku soo barakacay kaamka magaalada Boosaaso kadib markii ay saameeyeen fatahaadii roobkii watay ee ka daa gobolka Bari ku soo dhawow Yuusuf TV-ga Home Cable bal ka waran dadkan iyo xaaladooda iyo waxa ilaa haatan qabateen ka dawladahan bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhowahay teamka nooga timi Home Cable TV waan bogaadinayaa runtii walaale waxa yimi roob dabeelo wata bulshadana waa looga degay oo maamulkii degmadu aad bay uga degeen iyo maamulka gobolkaba iyana ka xaafadahaanba waa uga degnay in roobabkan dabeelaha wata dadka nugul ay ka soo guuraan si hadhowday khatarteeda u yaraato ama ay khatar badan u bahalkeen xaaladan aad iyo aad baa u maasan tahay dadkan waa loo qabtay oo ininku indhihiina inay macalin ah laakiin qofka bini aadamka waxa la yiri far iyo meel bugta iyaga shoog dadkanu waxa way maxay satay haayeen guriyo boosasay deganay guriyi waa ka wada qoyay raashinkii waa ka qoyay waxay micnii anagu halkan ku qabanay waa wax emergency ah wax laakiin permanent ah baa loo baahan yahay raashinkii waana u qaranay ganacsatadii amar buuxa la siiyay dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay roobkii dabeelaha watay ee ka da'ay gobolka Bari ayaa kor u dhaafaya 12,000 oo qoys kuwaas oo kala jooga degmooyinka gobolka Bari sida ay warbaahinta u sheegeen maamulka gobolka Bari ee Puntland Salmaan oo wararka TV-ga Home Cable magaalada Boosaaso moogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai موبايلو تلاجدو قسالدو تابلتس dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad
tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee teleefankaaga kadibna geli teleefanka qofka aad doonaysid inaad u codaysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaanaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama se bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333